naafada ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho ballaaran ku muujiyay nolosha aasaasiga sida caafimaadka waxbarashada waxaana ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliland wasiirada madaxtooyada iyo maaliyadda inay hoos u soo eegaan dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Burco sidoo kale waxay dadkani cabasho ballaaran ka muujiyeen dalada ay ku midaysan yihiin naafada dalkani Soomaaliland waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi arrimo kale oo tiro badan dadkani madaxweyne waa dadkii ku doortay waa dadka jilicsan waxay u baahan yihiin wax loo qabto cid wax u qabata ma hayaan cid shaqo siisa ma hayaan waxa jira qaar u baahan caafimaad oo awood u waayay waxa jira qaar wax bartay oo aan camal haynin oo shaqo u baahan waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne inaad ka warhaysid naafada gobolka Togdheer waxa laala wixii saamiya ee gobolka Togdheer naafadu ay leedahay waxaan ku leenahay ma jiro dawladana aqoon hay'adaana aqoon cidna taqaana ma jirto waa kuwa aad aragtay ugu timi halka qaar baan gawaadhiba lahayn qaar baan saaka ba soo qurxan guriga loo kireeyayna $100 baa lagu kireeyay 3 biloodba waa lagu leeyay marka waxa laala iyo waxaan ay gobolka Togdheer aan hadaan naafadanahay aanu saami qaybsi ama wax kastaba ha noqotee aanu leenahay waxbarasho haday tahay dhaqaale haday tahay maxaan ku dhahdayay ogaal cid taqaana ma jirto hadaanu naafadii gobolka Togdheer nahay waxna loo qabtayna ma jiro shaqaalayntii uu ku ballan qaaday madaxweynuhu uu sheegay ee aanay waxba naga soo gaadhin yaana looga dhiibin dalada naafada ee Soomaaliland ee SNDF wadanka ka jiro ama cadaalad jirto ama sinaani jirto marwa samsam cabdi aadanay budgetka gobolka Togdheer annagoo sida u soo tuban noogu dhib gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenkayga madaxweynuhu wuxuu yiri sanadkii walba waa la shaqaalaysiinayaa iyagu waa la shaqaalaysiiyay laakiin naafada Burco hadaanu nahay wax allaale wax nala shaqaalaysiiyay ma jirto waxaanu nahay ragii ardaydii dugsiyada sare ka baxay jaamiciin baa nagu jirta cid allaale cid annaka hawshayada gashaa ma jirto barwaaqo aadan maxmed magaalada Burco.